عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadaha sharafta leh kusoo dhawow fiidiyooga maanta. Waxaan ka hadli doonaa barnaamijka dadka ugu xooga badan ee caalamka ee ugu khatarta badan markaasi ahaan muruq ahaan jidh ahaan iyo welibana si kastaba si aad ula kulmin ka duxayso inta aadan arag ayaga ilaahayna kuma tuso. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar gambalaalka riix haddii aanu ku furayn. daawaha sharafta leh haddana waa inoo bilaabi doonaa 5 qof ee ugu khatarta badan caalamka. Giga Agoro waa shakhsi aad u caan ah balse laakiin naftiisa ku naanaysay dilaa. Ha u malayn dilaa sida ay dadku moodaan oo kale, balse laakiin waxa uu la baxay dilaa. Giga Agoro isagoo 4 jir ayaa la geeyay qaybta ciyaaraha lagu barto feerka. kadib markuu inta joogay waxa uu soo bandhigay ciyaar aad u la yaab badan. hase ahaatee waxa uu yidhi iguma filan intaasi inaan anigu sii ciyaaro, waxaan rabaa in ka badan in aan barto. ilaa hadda waa ninka u samaysan sida birta oo kale, balse laakiin soo bandhiga dagaal cajiib ah ilaa iyo yaraantiisii ilaa iyo hadda. Giga Agoro waa sida birta oo kale, waxbana ma karto. Chi Yang-min way adag tahay in la helo wadaadka noocan oo kale ah oo aad ciyaarta xariif ugu ah. Chi Yang-min waxaa dhalay 2 waalid oo haysta 9 carruur ah. Chi Yang-min waxa uu ku caan yahay ciyaarta karateega, difaacidda nafta. way badan tahay ciyaaro badan. ilaa haddana waxa uu ka yahay macallin. waxa uuna noqday sanadii 1992 ee ciyaarta karateega ee dalka Mareykanka. Chi Yang-min waxa uu ku guuleystay koobab caalami ah oo uu qaaday qaybta dagaalka. Fita Bravazari haddii aan ku dhaho ninkani maaha bini'aadan, waxaa laga yaabaa inaad adigu i rumaysan. Fita Bravazari waxay u samaysan yihiin jidhkiisu weliba qaybta murquhu sida birtii oo kale. Fita Bravazari waa macallinka Rachel Mar ee ciyaarta muruqa dhisida. Fita Bravazari hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Jarmalka. ila daawo fiidiyooyadiisa. Fita Bravazari waxa uu hadda ka soo muuqdaa qaybta musalsalaadka ee dalka Mareykanka. Ngannou maxaad u malaynaysaa shakhsiga markuu isku darsado ciyaarta taekwondo iyo dansiga fudud? waxaa lagu daray college oo lagu dhigto ciyaarta taekwondo isagoo ah 5 jir. waxa uu mar walba isku qaadan jiray in uuna qaadanin ciyaar ku filan isagu, balse laakiin waxa uu ku jiraa dadka ugu khatarta badan ee qaybta dagaalka. Ngannou hore looma arag ciyaaraha mise dagaalka uu isaga soo bandhigo habka uu isku difaaco. Jide Anderson waxa uu u muuqdaa ninkan xoogga weyni inuu yahay dad naadir ah oo adduunka jooga. Jide Anderson waxa uu sameynayo mararka qaar waad ka yaabaysaa wax aqliga galaya maaha. waxa uu awoodaa inuu afkiisa ku jabiyo alwaaxdooda kuwa ugu adag. Jide Anderson waa nin aad iyo aad cajiib ah. waxa ay dadku ugu magac dareen ninkii birta ahaa markii uu sameeyay rikoodhkii barafka uu isagoo waxba isticmaalayn uu jabiyay.
wadaha qiimiga badanow waad ku mahadsan tahay intii aad daawatay. waxaan kaa codsanaynaa si aad u hesho mar walba barnaamijka cusub ee aan soo gelino inaad subscribe noo saarto. waad ku mahadsan tahay daawade.